السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودياشينا قيمها يقايا نقمضا ميل والبا جوجتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah haduu ila aadmo waxaan ku baran doonaa qaabka Microsoft Word loogu bedelo PDF. fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysa oo soo booqato channelkan Hanweyn Media, waxaan ka codsanayaa daawada inaad channelka subscribe inoo dhahdo, gambeelkan aad furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. sidoo kale haddii aad inoo hayso talooyin ku saabsan horumarinta channelkan, waxaan ka codsanayaa inaad inoogu reebto qaybta commentiska. haddii aad la jeceshahay asxaabtaada inuu muuqaalkan sii gaaro si ay kaga faa'iideystaanna, fadlan u sii share garee. waadna ku mahadsantahay dabcan daawashada muuqaalkan. السلام عليكم داودا markale soo dhawow. muuqaalkan insha Allah si aad ku soo maqasho hordhaca barnaamijkaba waxaan ku baran doonaa qaabka Microsoft Word loogu bedelo PDF waliba hab fudud. Word waa qoraal dabcan aad samaysay adigu. haddii aad rabto in qoraalkaas uu noqdo documenti ku xafidan, qofna aan waxba ka bedeli karin, una diyaarsan kaliya in la akhriyo, waxaan kugula talin lahaa daawada inaad isticmaasho habkan aad ayuu u fudud insha Allah. la socosho wanaagsan. marka hore waxaad soo kiciysaa browserka kugu jiro internet aad ka isticmaasho. anigu waxaan isticmaalaa Google Chrome. ka marka hore soo kici. marka uu sida kugu soo kaco, qaybtan kore waxaad ku qortaa searching-ka website-ka en.softonic.com oo website laga heli karo ama laga la degi karo waxa loo yaqaano application-ka isku bedelaya Word-ka iyo PDF-ka. haddaba ka marka aad qorto enter leh, haddii kale waxaan ku soo dhigayaa qaybta description-ka ama faahfaahinta, halka link-ga ku dhufo. dabcan website-ka markii uu soo furmo sidaan uu kugu soo kaco, waxaad imaataa qaybtan searching-ka, halkaas ku qor free Word to PDF converter. kadibna enter leh. kadib halkan ay ku keeni doonaa qaybtan hoose. soo aad hoos scroll aan usoo samee. kadib waxaad imaataa kan ay ku qoran tahay free Word to PDF converter. halka ay ku qoran tahay free download, halkan guji. dabcan haddii aad isticmaasho toos, linkiga aan ku soo dhigay description-kana si toos halkan ay kugu soo xiri doonaa. kadib waxaa xiga in aad dhahdo free download, halkan ku dhufo free download for Windows, halka guji oo jugsi. kadib waxaa lagu soo gudbinayaa qaybtan halkan hoose ay ku qoran tahay free download for Windows, halkaas guji oo jugsi. kadibna waxaa bilaabanayo application-ka ama software-kii aan u baahnayn inuu soo dego. halkan hoose ayaad ka aragtaa iminka. insha Allah marka uu sida kugu soo dego ayaad ku rakabaysaa shaashada computer-kaaga. iminka wax yar ayaan sugaynaa. markastana waxay ku xiran tahay xawaaraha internet-ka aad isticmaalayso. dabcan marka uu sida u dhamaado soo dejintana waxaad imaataa qaybtan hoose, halka guji. kadibna waxaad dhahdaa show in folder. markaad halkan imaato waxaan u baahanahay iminka inaan fulino step-ka labaad oo ah inaan application-kana ku rakibno shaashada computer-ka. isaga markaad ula imaado, kadibna double click si 2 jeer ku dhufo. dabcan wuu ku shaqeyn doonaa marka uu sida kugu soo kacana. iminka waxaa loo diyaarinayaa in lagu rakibo shaashada computer-ka. okay, kadib waxaad dhahdaa halkan next dheh, mar labaad next, marka xigana install. kadibna waad aragtaa iminka inuu halkan ku soo fuliso, markaana uu shaashada computer-ka kuga rakibmay. iminka dambeena waa ku shaqeyn doonaa. haddaba si aan u tijaabino Word ugana dhigno wax loo yaqaano PDF, waa step-kana saddexaad. markana waxaan rabnaa marka inaan tijaabo ka qaadno in Word-ka uu u bedelmayo PDF. waxaad samaysaa Word cusub abuuro. okay, سلام كان أيان أبورني
marka uu sidan kuugu soo kaco waxaan rabnaa inaan tijaabo ka qaadno isla markaana aan gelino qoraal si qoraalkaas looga dhigo mid PDF ah. kadibna waa save gareynaynaa Ctrl S. okay waxaad imaanaysaa qaybtan ay ku qoran tahay file, halkaas ayaa jug siinaysaa. kadibna waxaad imaataa qaybtan ay ku taalo save as, halkaa ku dhufo. kadib waxaad imaanaysaa qaybtan save as a type, nooca aad rabto u save gareyso. hadda iminka waxaa noogu yaala Word, inaga waa marna PDF ayaan rabnaa, halkaas jugsi. kadib waxaad raadaysaa PDF, halkaa ku dhufo. kadibna waxaad dhahdaa meesha aad tusaana aad rabto kala shaashada iminka noo geey desktopka noo saar, ku dhufo halkaa ku save garee. kadibna halkan save leh. iminka waxaa la saveeyaa qoraalkan Word-ka ah oo loo bedelay mid PDF ah. waxaa muhiim ah in marka PDF lagaaga dhigaayo oo computerkaaga kugu jiro application lagu aqriyo waxyaaba PDF-ka ah. Adobe Reader iyo kuwa badan ayaa jira. okay iminka waad aragtaa waa kan tijaabo isagoo PDF ah. haddii aan furno iminka waa kana PDF ayaan ka dhignay. assalaamu calaykum, kani waa qoraal tijaabo ah oo aan ugu talagalnay inaan u bedelno PDF. iminka waad aragtaa qoraalkaaga aad ayuu qurux badan yahay, isla markaana waxaa loogu talagalay kaliya in qofka kale uu akhriyo waxna uusan ka bedelin qoraalkan. dabcan daawade waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iidaysto cashirkan isla markaana aad ka baratay qaabka fudud ee Word loogu bedelo PDF.